Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub. Intaan u guda gelin, waan idinkaga mahad celinayaa taageeradiina. Inaad like saartana muuqaalka waxay iga saacidaysaa in YouTube-ka dad badan uu gaarsiiyo. Haddaba markaynu bilowno muuqaalka. TikTok waa application xilliyadii dambe dhalinyartu aad u isticmaalaan. Aniga xataa waxaan ka mid ahay dadka soo degsaday. Laakiin markii aan waqti isticmaalayay, waxaan arkay in waqti badan uu iga luminayo. Waan iska saaray. Inta badanna muuqaalada la soo dhigo TikTok waa kuwa isku mid ah oo u badan qosol iyo madadaalo. Adduunka oo dhan dadka sida joogtada ah u isticmaala waxa ay ka badan yihiin 800 oo milyan. Dadka degsaday ee telefoonadooda ku shubtana waxa ay ka badan yihiin 1.5 bilyan oo qof. Waa dad aad u badan. Waxa uu TikTok noqday application-ka aan game-ka ahayn oo loogu degsiga badan yahay App Store-ka iyo Google Play. Dalka Mareykanka waxaa lagu soo eedeeyay TikTok in carruurta xogtooda u aruuriyo iyadoona laga qaaday lacag dhan $5.7 milyan oo dollar. Aasaasaha Facebook, Mark Zuckerberg, waxa uu ka mid yahay dadka soo horjeeda TikTok. Wax qarsoon maahan. Application-nada aan u isticmaalno ku hadalka iyo kuwa fiidiyada aan iskugu dirno in dadka isticmaalaya ay xogtooda aruuriyaan, kadibna ay ka gadaan ama ay siiyaan dawladda ay hoos tagaan. Dalka Shiinahana kuma sii jiro. Dadka waddankaasi oo dhan dhaqdhaqaaqooda waxaa la socda dawladda. Haddaba marka sidoo ku bilowday TikTok, waxaa iska leh shirkad Chinese ah oo lagu magacaabo ByteDance. Waxaa aasaasay sanadii 2012 ninka lagu magacaabo John Yimin oo ah nin software engineer ah. Shirkadda ByteDance abkii ugu horreeyay ee soo saarto waxa uu ahaa mid laga akhristo wararka oo lagu magacaabo Taopion. Shacbiyad badan ayuuna yeeshay. Kadibna application kale ay soo saartay shirkadda. 2016 shirkadda ByteDance waxay soo saartay application ay ugu talagaleen in muuqaalada gaagaaban la soo dhigo gudaha dalka Shiinaha. Waxayna u bixiyeen magaca ah Douyin. sanad gudihiisii application-kaasi waxa uu helay 100 milyan oo isticmaalayaal ah iyo 1 bilyan oo daawasho maalin walba. Sanad gudihiis ayuu intaas ku gaaray. Douyin 2017 dawlado kale ayay gaarsiiyeen waxaana loo bixiyay magac kale oo ah TikTok. Laakiin marka laga soo tago China, adduunyada kale keligii kuma aha oo tartan adag ayuu galayaa. Aan sanadooyin dib u laabano. 2012 bishii June waxaa la aasaasay application lagu magacaabo Vine oo sida TikTok oo kale lagu soo gudbin jiray muuqaalada gaagaaban. Shacbiyad badan ayuuna yeeshay. Laakiin ugu dambeyn way ka faa'iideysan waayeen milkiilayaasha. Hawada ayuuna ka baxay application-kaas 2016. Dadkii markaa caanka ka ahaa application-kaasna waxay u soo wareegeen app kale oo lagu magacaabo Musical.ly oo isagana la aasaasay sanadii 2014. Kadibna shirkadda iska leh TikTok fursad ay halkaa ka aragtay. Waxayna ku iibsatay application-ka Musical.ly lacag 1 bilyan oo dollar ah 2017. Kadibna labada app ee Musical.ly iyo TikTok hal mid ayay ka dhigeen. Haddana waa application-ka loo yaqaano TikTok. Gudaha dalka Shiinaha waxaa looga yaqaanaa Douyin, halka wadamada kale ee caalamkana looga yaqaano TikTok. Artificial Intelligence-ga ay isticmaalaan TikTok waa mid aad u sareeya. Markaad isticmaalayso, dadka waa follow gareyn kartaa. Waxa uuna sameeyaa application-ka muuqaalada aadan dhammaysan kuguma soo celinayo, isagoona u arkaya in aadan ka helin. Waxa uuna ku tusayaa muuqaalo kale si uu ogaado kuwa aad xiiseynayso. Haddaba marka sidee application-kan lacag ku sameeyaa? Isha ugu weyn ee dakhliga uu ka soo galo TikTok waa xayeysiinta iyo coins-ka ay dadku isweydaarsadaan. Application-ka TikTok waxaa aad looga isticmaalaa wadamo badan oo caalamka ah, laakiin waddanka aadka looga isticmaalo marka laga soo tago China waa Hindiya. Nisbe aad u badan ayaana ka isticmaasho waddankaas. TikTok waxaa la isticmaalayaa oo hawada uu ku jiraa sanadooyin yar. Marka la barbar dhigo shirkadaha kale ee la tartamaya, waxaana loo soo jeediyay eedeymo badan, laakiin dhammaan way iska beeniyeen. Si dad badan u sii helaan application-kooda, waxa ay sameeyeen in dadka caanka ka ah Instagram ay siiso TikTok lacag, beddelka lacagtaasna ay ku soo biiraan TikTok page-na ay ka samaystaan. Dabcan, arrintaas inay samaysana TikTok way ku guuleysatay. Mar walba oo qof caan ah TikTok ku soo biiro, waxaa sidoo kale soo gelaya qofkaasi dadkii ku xirnaa. Isticmaalka TikTok iyo in muuqaal la soo dhigana waa mid aad u fudud oo juhdi badan uma baahna. Waad ku mahadsantahay daawashada. Muuqaalka xiga ayaa inoo balana.